dagaal culus oo u dhaxeeya maleeshiyaadka beesha Ciise iyo sidoo kale mid ka mid ah beelaha dega gobolka Awdal ayaa hadda waxa uu ka socdaa meel u dhow degmada Saylac oo ka tirsan gobolka Awdal degmo lagu magacaabo Cali Xaydh oo ka tirsan gobolka Awdal ayuu dagaalku ka socdaa daryanka hubka iyo sidoo kale qoryaha dorondooriga u dhaca ayaa si weyn looga maqlayaa aaga dagaalku uu ka socdo labada dhinacna waxay helayaan gurmadyo xoogan maleeshiyaad ka tirsan beesha Ciise ayaa la soo warinayaa in gurmad xoog leh ay ka heleen dhinacaas magaalada waa dhinacaas dowlad deegaanka Soomaalida halka maleeshiyaadka kale iyana gurmad ay ka heleen deegaano hoos yimaada magaalada Saylac taas oo dagaalka sii adkaysay qof ka mid ah dadka deegaanka oo la hadlay telefishinka Himilo ayaa wuxuu sheegay in dhinacyadu maalmihii la soo dhaafay dirirtoodu ay soo taagneed isla markaana xiisadu ay muddo halkaasi ka taagneed waan ay wadeen odayaasha labada dhinac ayaa guul daraystay si xal looga gaaro dirirta halkaasi ka socota waxaana wararka iyo macluumaadka hadda aan helayna ay sheegayaan in dagaalka hadda socda uu sababay khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac ciidanka Somaliland ayaa ku baxay halka uu dagaalku ka socdo laakiin xataa Somaliland waxa lagu eedeynayaa inay dhawaan weerar ku qaadeen ciidamo ka tirsan kuwa beesha Ciise oo reer guura ahaa kuwaas oo ku sugnaa meel u dhow degmada Saylac oo ka tirsan gobolka Awdal xiisada ka alowsan xadka ay wadaagaan Awdal iyo sidoo kale dowlad deegaanka Soomaalida ayaa muddo soo taagneed dhowr jeer halkaas waxa ku wada dagaalamay beelaha Gudubirsi iyo Ciise haddana waxa dagaalamaya Ciise iyo mid ka mid ah beelaha halkaasi dega walow aan la ogeyn khasaaraha dhabta ah ee ka dhashay dagaalkaasi dhimasho iyo dhaawac toona adeega isgaarsiinta halka uu dagaalku ka socdo ayaa hawada laga saaray waxaana goobta gaari doona ciidamo ka tirsan kuwa Somaliland oo la filayo inay kala dhex galaan maleeshiyaadka uu dagaalku dhex marayo gaar ahaan kuwa ku dagaalamaya gobolka Awdal ee maamulka Somaliland si walbaba ha ahaatee xiisada ka taagan gobolka Awdal ayaa maalmihii la soo dhaafay ahayd mid cirka isku shareertay iyadoo dhinacyadu dhowrkii maalin ee la soo dhaafay ay heleen gurmadyo kala duwan odayaasha dhaqanka ee beelaha dega gobolka Awdalna eedeymo culus waxay u jeediyeen Somaliland oo ay ku eedeeyeen inay culaada hurinayso daawadayaal wixii ku soo kordha dagaalkan socda khasaaraha uu sababo wararkeena dambe ee telefishinka Himilo ayaad kala socon doontaan internet plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah ku hadal iyo IPTV ula socda receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal internetka guryaha ku shubo $25 oo hel internet xawaarihiisu yahay 20 megabyte per second iyo 200 oo daqiiqo oo ku hadal gudaha ah ama ku shubo $30 oo hel internet xawaarihiisu yahay 30 megabyte per second iyo 200 oo daqiiqo oo ku hadal gudaha ah internetka xafiisyada ku shubo $50 oo hel internet xawaarihiisu yahay 55 megabyte per second iyo 400 oo daqiiqo oo ku hadal gudaha ama ku shubo $90 oo hel internet xawaarihiisu yahay 110 megabyte per second iyo 700 oo daqiiqo oo ku hadal gudaha